shir looga hadlayo arrimaha korontada iyo waliba shidaalka qaaradan Afrika ayaa ka soconaya magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika. Abdullahi Dasar ayaa ka soo ramay. shirkan caalamiga ah ayaa waxa uu maalintii labaad ka socda magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana looga arinsanayaa kobcinta iyo wax soo saarka qaaradda Afrika gaar ahaan korontada iyo shidaalka. shirkan waa shir sanadla oo loo yaqaan Africa Oil and Power waxa ka soo qayb gala wadamada Afrika waxay ahayd inuu furo madaxweynaha Senegal oo ka baaqday laakiin waxa joogo dhowr wasiir oo ilaa iyo 10 gaaraya waxaana hormuud u wasiirka macdanta iyo energy ee South Africa oo shirka hoos gareynay iyo hay'adda ugu weyn oo Africa Oil and Power leeyahay oo shirka qaban qaabinay waxa lagu soo bandhigaa horumarka ay Afrika ka gaartay dhinaca energy-ga iyo gaaska iyo petrolka wadamada ka shaqeeya howlahaas Soomaaliya waad ogtahay waxay rabtaa inay ka mid noqoto wadamada soo saar petrolka dhawaan hadii Ilaahay yiraahdo sidaas darteed waxaan markasta shirarka caalamiga uga qayb galnaa inaan Soomaaliya ka iibino adduunka intiisa kale shirkadaha caalamiga imaanaya shirarka waaweyn iyo wadamada Afrika inay arkaan in Soomaaliya horumar joogta oo marka sanad ka dambeeya ka socdo mudane wasiir su'aasha ugu dambaysa ku weydiinayna waxay tahay soo saaridii shidaalka Soomaaliya halkee maraya processkeeda shidaalka Soomaaliya si loo soo saaro wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo dhamaan shuruucdii qaabilsanaa in soo saaritaankiisa si adduunkana loogu qanciyo Soomaaliya gudaheedana ay looga aamino in sharci shidaal la soo saaray waxa koow ka ah in lagu heshiiyay Soomaaliya ay ku heshiisay heshiiskii khayraad qaybsiga oo lagu saxiixay Baydhabo June 2018 waxa ku xigay ansixintii sharciga petrolka oo ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka isla markaan hadda wuxuu yaalaa aqalka sare waxaan rajaynaynaa kalfadhigan shalay furmay inuu ansixin doono sharciga petrolka isla markaan madaxweynaha uu saxiixi doono waxa kale oo diyaarsan dhammaan heshiisyadii caalamiga ah oo loo yaqaan heshiiskii wax soo saar wadaaga ah oo aan kula heshiin lahayn shirkadaha caalamiga anagoo wada tashi ka gelinay wadamada saaxiibada aan nahay iyo hay'adaha caalamiga sida World Bank iyo Africa Development Bank iyo khubaro adduunka ah oo aan la tashanay hadda waa noo diyaar waxaan isleenahay waxaan soo bandhigi doonaa dhawaan hadii Ilaahay yiraahdo wax loo yaqaan road show ama soo bandhig khayraadka Soomaaliya oo ku soo bandhigi doono magaalada Houston ee ariga Mareykanka taas waxa xigi doona insha Allah in loo tartamo petrolka Soomaaliya dhawaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sanadka 2020 in waji kale ay yeelato oo Soomaaliya oo ay saxiixdo heshiisyada ugu horeeyay ee petrolka Soomaaliya mudane wasiir aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan ku suganahay holka shirarka Cape Town International Convention Center waana wasiirka petrolka ee maanta Soomaaliya mudane Cabdirashiid oo halkan maanta aan kula suganahay Abdullahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika